السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا قالي دمانتو السلام عليكم بدونك أكي جوجتان وولاشين ومهارون iyo mar kaleetood please kanaalkayga taakay subscribe like commenti dhiirigelinta waa xaqiina maanta waxaa inoo wada qiso muhiim ah qisas dhaxdeedan waxaa ku jirto duco oo muhiim ah aniga maalinta qisadan maqlay wixii ka dambeeyay ducadaas waa akhristay alxamdulillah ilaahay farajo ii furay wax walba sahlan saqiiran oo iiga dhigay adinkan waxaa idin rajeynaa inaad ka faa'iidi doontaano ducadan ayadoo yar oo liis yar ah oo 30 second ka yar aan soo geliyay youtube-ka iyo tiktok-gayga labadaba waa soo geliyay marka insha Allah qisadan sidaan ay ku bilaabanaysaa gabar ayaa jirtay gabadhu iska faraxsaneed hooyada aabeed la nooleed waa la guursaday markii la guursaday wax yar kadib ninkii way soo kala tageen calafkooda meesha ku dhamaaday guriga hooyada aabeed ay ku soo laabatay hooyadii iyo aabihii maalin waxaa laga casuumay xalfad aroos ah ayagoo xalfadii ku sii socdo oo gaariga accident la galeen meeshii ku dhinteen markay dhinteen marka wadamadan carabaha sharciga ka jiro anaga Soomaalida sasmaniin gabadha hadii waalidkina dhintay ninna qabin waxay la noolaanaysaa wiilasha walaalaheedna kulligood xaasasay leeyihiin iyo ilmo gabdhiina sidoo kale nimana qabo laakiin guriga gabdhaha walaalaheeda ma aadine guriga wiilashay aaday guri kamid ah markay aaday aad wax yar kadib naagtii oo waxay isku dhaceen oo walaalkeed qabay markasto walaalkeed ay ku diree adi walaalkii wuxuu qaatay naagtiisa hadalkeeda gabadhi waa la dhibi jiray gurigi way ka soo tagtay hadan guri kale walaalkeed kale imaatay sidii oo kale ayadoo xaaladdu ku jirto waxay tiri sidii oo shaqaale camal ugu shaqeynaa cuntada u karnaa ilmaha ugu qabeynaa ilmaha wada maxay ahaayeen markay salaada dukanaysan jikadii ku dukanay saligeeda jikadu u yaala jikadii ku dukanay ilaahay ku baryay meeshii iska ilaahay iskaga cibaadeysataa marka duco waxaa jirtay mar walba ku soo celin jirtay waxay dhigi jirtay mar walba Allahumma ajbur kasri ay ku celin jirtay gabadhiisa ducada ugu duceysanayso oo marba guri loogu wareejinayo oo marba walaalkii iyo naagtii inay isla saftaan ayadii laga soo horjeesanayo oo guri kamid wili ay ku nooshaa wiil walaalkeed ah maalmaha kamid walaalkeed wuxuu yiri soo bax ma u sheegin waxba kama dhacsiinin waa guursanay ma dhihin ninaan ku soo arkay ma dhihin soo baxo yiri maxkamadda maalintuu geynaayo la soo baxay maxkamadda markii la geeyay leeba ka wareyshay inuu nin guursanayo haba guursada ma wuxme nin oday ah oo maxay ahaayeen ayada dhali karo lagu daray ninkii marka meeshii lagu soo mehriyay waa iska soo laabatay gurigeeda iskaga soo laabatay ilmihii noloshii cid ay u haysay u qabatay hoosheedii ayadoo sida iskaga jirtay ninka marka wuxuu yiri 2 bil ilaa 3 bil aan ku taawshaysanaa waa markaas aroos fiican u dhigayaa ha ii sii joogto gabadha maalmaha kamid ah albaabkooda la soo gargaraacay wiil yar oo dhalinyaro soo gargaraacay wiilkii wuxuu yiri anigu waxaan ahay hebelkii oo maxay ahayn gabadhiini guursanay wiilkiisa aabe Allah ya raxma oo dhintay nin taajiro ahay gabadha marka maadaama ay ku mehersaneed dhaxal ay xaq u leedahay dhaxalkeedii ayaa u wadaa gabadhii way faraxday waa la soo wada maxkamadda la keenay wixii dhaxal xaq u leeyahay la siiyay maxay ahaayeen hadii la tuso dhaxalkii waa guri qasri ah kaarar oo lacag ku jirto baabuur adduunyo because odiga taajir u ahay aad u taajir u ahay naag oo qabay oo mehersada kaliya intaas ku soo aaday macaadala wiil oo dhalay ama gabar oo dhalay inta ku soo aadi leed adi gabadhi sidii maxay ahaayeen ilaahay faraj ugu furay farajkaasna waxa u sabab ah ducadii akhrisinaysa Allahumma ajbur kasri ay ku celinaysay gabadhii alxamdulillah markay noloshii heshay ayadana ma noqonin gabar oo maxay ahaayeen ka aarsato walaalaheed iyo naagii ay qabeen ma noqonin xafisay u fidisay gurigeedii kula noolaayeen meeshii nolol farxad la ku gashay marka muhiimadda aniga maanta aan u soo qaatay qisadan waa ducadaas muhiimka ku dhex jirto ducadan hore bilowga u soo sheegay ani naftirkeyga waa akhriyay waana arkay faa'iidadeeda hadduu problem ku haysto hadduu dhanka family ka haysto hadduu dhanka ninka ka haysto hadduu dhanka xaaskaada ka haysto meel walba oo ka haysto hadduu dhanka xataa dowladda ka haysto ciyaalkaada u walwalsan tahay Allahumma ajbur kasri ku celceli waa arki doontaa ilaahay faraj ku furayo insha Allah intaas marka maanta nila wadaagay qisadana intaas ku eg tahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.